kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa Warsida TV kusoo dhawaada qodobada wararka aan idin hayno kuwada ugu door karoona waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay shirka maanta xirada Afisiyoni uga furmay madaxda dawladda iyo maamul goboleedyada madaxweyne Farmaajo oo ka guuleystay hogaamiyaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland oo markii ugu horeysay soo hor fadhiistay madaxweyne Farmaajo iyo qodobo la isku fahmi la yahay taliska ciidamada booliiska oo maanta soo saaray warqad ay muddo aqrinayeen si ay ugu carqaladeeyaan shirka ka furmay xirada Afisiyoni iyo madaxweyne Joe Biden oo muddo hal sano ah ku korniyay naqabatayntii dhanka dhaqaalaha ee Soomaaliya uu saaray madaxweyne Trump markale kulanti haboon daawadayaal halkan waa Warside fadlan subscribe saara janaalka sidoo kalena videoga u share gareey asxaabtiina like iyo commentina hanaga hilmaamina mahadsanidin aanu ku bilownay wararkii ugu dambeeyay shirka maanta xirada Afisiyoni uga furmay madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada dalka waxaa maanta si habsami leh magaalada Muqdisho caasimadda dalka gaar ahaan xirada teendhada Afisiyoni aan shir aan caadi ahayn uga furmay madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya shirkan ayaa waxaa la sheegay inuu yahay mid hordhac u ah shirka madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta shirka shir gudoominayay isla markaana furay waxaana shirka uu ahaa mid furitaan u ah shirka golaha wada tashiga qaran ee lagu dhameystirayo arrimaha doorashooyinka iyo caqabadaha ka taagan iyadoona shirkan uu ahaa mid ammaankeeda ay si aad u sugayeen ciidamada AMISOM waxaana gudaha xirada teendhada lagu arkayay ilaalada madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada wararkii ugu dambeeyay oo aan kaleeyno halkaasi ayana waxa ay sheegayaan in maanta ay si rasmi ah isku hor fadhiisteen madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada oo muddooyinkii dambe qaar kamid ah ay halkaasi isku arkayeen maanta si dhameystiran ayaa la sheegay in madaxdu isku soo hor fadhiisteen arrimaha ugu waaweyn oo madaxda dawladdu ay ka hadlayaan ayaa ah sidii xal loogu gaari lahaa sidii uu qabsoomi lahaa shirka arrimaha doorashooyinka lagu falanqeynayo oo magaalada Muqdisho uga furmaya madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada ajendaha shirkaas iyo ujeedooyin kale oo lagu xalinayo arrimaha doorashooyinka ee taagan arrimaha doorashooyinka ayaa ahaa muddooyinkii dambe kuwa cakirnaa isla markaana ay ku kala aragti duwanaayeen madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada dalka waxaana jirtay dadaalo dhowr oo lagu bixinayay sida shirkaas uu ku qabsoomi lahaa shirka maanta ayaa waxaa la sheegay in markaasi uu ahaa kuwa qodobo dhowr ah ay la soo hor fadhiisteen halkaasi madaxda dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland qodobadaasi oo ay ku dalbadeen in loo baahan yahay in loo cadeeyo ka hor inta aan la gaarin shirka weyn ee madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyadu ay yeelanayaan qodobada xasaasiga ah maanta shirka la isku yimid waxaa kamid ahaa isla markaana wararku ay tilmaamayaan inay kamid ahaayeen dhacdooyinkii 19 Febraayo shaqaqooyinkii dhacay ay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay markaasi la sheegay inay goobta la yimaadeen isla markaana ay madaxda dawladda hor dhigeen oo ay markaasi sheegeen in loo baahan yahay in xadgudubyadii iyo arrimihii ka dhacay shaqaqooyinka gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho in madaxda dawladdu ay xaqiijiyaan isla markaana ay raali gelin ka bixiyaan arrintaasi lagula kacay mas'uuliyiin hore uga tirsanaa dawladda federaalka Soomaaliya xilal kala duwan u soo qabtay waxaa sidoo kale kamid ahaa qodobada sida aadka ah markaasi u adkaa ee arrimaha doorashooyinka looga hadlayay oo maanta iskala hor imaadeen madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada oo dhamaantood isugu tagay xirada Afisiyoni dhanka amniga doorashooyinka iyo cidda mas'uuliyadeeda qaadaysa kadib weerarkii 19 Febraayo madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa waxa ay si aad ah madaxda dawladda maanta la sheegay inay uga doodayeen arrimahan sidii xal loogu heli lahaa isla markaana ay u cadeyn lahaayeen cidda sida saxda u damaanad qaadaysa doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo horaanta sanadka 2021 sidoo kale qodobadii ugu muhiimsanaa oo maanta shirka looga hadlayay isla markaana doodooda la soo bandhigay waxaa kamid ahaa cidda damaanad qaadaysa heshiisyada arrimaha doorashooyinka iyo sida loo dhaqan gelinayo waxa ay tilmaameen wararkii ugu dambeeyay oo ka soo baxay halkaasi in dhinacyada la rumaysan yahay in ay markaasi isku fahmin wali qodobada iyo sidoo kale ajendaha shirka weyn looga hadlayo ee lagu xalinayo arrimaha doorashooyinka iyo dhibaatooyinka ka taagan
waxaana maamul goboleedyada mucaaradka ka ah dowladda federaalka ah ee Puntland iyo Jubbaland ay soo bandhigeen qodobo dhowr ah oo aad u adag kuwaas oo la sheegay in wali la isku fahmi la yahay isla markaana aan la isku marin waxa qodobadaasi kamid ah cidda ka qayb galaysa shirkan oo markaasi wararku qaar ay sheegayaan in madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland ay daneynayaan inay ka qayb galaan shirka madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada arrimaha doorashooyinka lagu xalinayo qaar kamid ah saamilada siyaasadeed gaar ahaan midowga musharaxiinta iyo sidoo kale markaa maamulka Somaliland asxaabta u dhaqdhaqaaqda oo uu koow ka yahay gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdilaahi iyo mas'uuliyiin kale oo cabasho ka qaba arrimaha doorashooyinka sidii ay u horkeeni lahaayeen waxaana la sheegay in shirku uu ahaa mid si habsami leh oo degan ku bilowday isla markaana xaaladiisu ay ahayd mid degan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa dhaqdhaqaaqa ugu badan muujinayay shirka sida wararku ay tilmaamayaan waxaana la sheegay in qodobo dhowr ah oo ay soo qorteen ay la hor yimaadeen madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada sidoo kale waxaa jirta in madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka la sheegay in ay ku kala aragti duwanaadeen arrimaha qodobada ah ee shirka markaasi looga hadlayo waxaana la sheegay in wali falanqeynta shirku ay socoto dhanka kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka guuleystay hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland kadib markii ugu horeysay ay soo hor fadhiisteen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa si aad ah waxa ay uga aragti duwanaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxaana gabi ahaanba ay ka soo horjeedeen inay yimaadaan xerada Afisiyoni maanta ayayna isku soo hor fadhiisteen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo shir gudoominaya xerada Afisiyoni iyadoona madaxweynaha uu guul weyn arintaas ka gaaray wararka qaar ayaa sheegaya in markaasi madaxweynayaashu ay markaasi muddooyinkii dambe si aad u diidanayeen in xerada ay tagaan waxaana maanta gabi ahaanba shirka isugu yimid madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo dhamaanba madaxweynayaasha dowlad goboleedyada shanta ah gobolka Banaadir ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaana la sheegay in qodobada ugu muhiimsanaa ee madaxweyne Farmaajo kaga guuleystay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ay qayb ka ahayd arinta dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ay diidanayeen oo ahayd in shirka uu shir gudoomiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasi oo dhawowday kadib markii maanta shir uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka furmay Muqdisho gaar ahaan xerada Afisiyoni waxaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta si habsami leh u gudoomiyay shirka madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada oo ka furmay teendhada Afisiyoni ee magaalada Muqdisho maamul goboleedka Puntland iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan maanta uga hadlay shirka Muqdisho xerada Afisiyoni uga furmay madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada waxaana ay isku khilaafeen shirkan iyo sidoo kale in ay beesha caalamku ay ku jiraan xubno ka tirsan iyo in kale dowladda federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta Abuukar Usmaan Dubbe oo hadlay ayaa waxa uu sheegay in gabi ahaanba aysan shirka ku jirin wakiilo ka tirsan beesha caalamka isla markaana ay joogaan madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada oo kaliya waxaana uu meesha ka saaray in ay madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada ay ku heliyaan beesha caalamku dhanka kale war ka soo baxay dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa lagu sheegay in shirka uu yahay mid hordhaca isla markaana ay ku jiraan wakiilada beesha caalamka isla markaana ay socodsiinayaan waxaana warkaasi uu yahay mid khilaafsan kii dowladda ka soo baxay muddooyinkii dambe maamulka Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya madaxdeeda ayaa si weyn markaasi u khilaaf arrimaha doorashada uga dhaxeeyay waxaana maanta siyaabo kala duwan ay uga hadleen shirka Afisiyoni uga furmay dowladda federaalka Soomaaliya madaxdeeda iyo sidoo kale maamul goboleedyada dalka iyadoona wali ay muuqato in uu jiro khilaafka xoogan ee u dhaxeeya madaxda dowladda iyo sidoo kale maamulka Puntland iyadoona wararku qaar ay tilmaamayaan in wali uu jiro dagaal hoose oo ka dhaxeeya maamulka Puntland iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya taliska ciidanka booliska ayaa soo saaray warqad in muddo ah ay qarinayeen taas oo la sheegay in la doonayo in lagu carqaladeeyo shirka ka furmay xerada Afisiyoni taliska booliska wareegta ka soo baxday ayaa maanta waxa lagu sheegay in gabi ahaanba taliska booliska ee markaasi la hoosgeeyay gabi ahaanba saldhigyada guurguura iyo sidoo kale saldhigga booliska ee garoonka aadan cadde in markaasi la hoosgeeyay taliska qaybta booliska gobolka Banaadir taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa wareegta uu soo saaray waxa uu ku sheegay in taliska booliska saldhigga garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyo baraha control ee guud ahaan
ee dalka markaasi gaar ahaan gobolka Banaadir in lagu wareejiyay taliska ciidanka booliiska ee qaybta gobolka Banaadir isla markaana dhamaantood ay hoos tagayaan wareegtada ayaa lagu sheegay in si loo dedejiyo hawlaha ciidanka booliiska isla markaana la isugu dubarido hawlaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir in labada fadhi ee saldhigyada booliiska ee markaasi dayuuradaha iyo sidoo kale fadhiga barta control ee guurguurta dhamaantood si toos ay u hoos tagayaan taliska booliiska guud ee gobolka Banaadir waxaana arintan walaac xoogan laga muujiyay isla markaana la sheegay inay tahay mid lagu carqaladeynayo shirka magaalada Muqdisho xarada afisyoon uga furmay madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada haddaba warqada ka soo baxday ayaa waxa markaasi taliska booliiska lagu faray in loo hogaansamo awaamirta iyo warqadaha tooska ee ka soo baxaya hogaanka taliska booliiska waxaana la ogeysiyay inaysan jirin cid ka hor imaan karta madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa muddo hal sano ku kordhiyay cunaqabatayntii Mareykanku uu ku soo rogay Soomaaliya madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ee cusub ayaa waxa uu muddo hal sano uu saxiixay isla markaana uu ku kordhiyay amar madaxweynena ugu daray muddo hal sano cunaqabatayntii Mareykanku uu ku soo rogay Soomaaliya waxaana muddo markaasi laga joogaa markii madaxweynayaashii hore ee markaasi Mareykanka Obama iyo sidoo kale madaxweyne Trump ay iyaguna si la mid ah ay u meel mariyeen isla markaana ay ku saxiixeen waxa sababta lagu sheegay in xaaladda Soomaaliya ay wali tahay mid aan caadi ahayn isla markaana loo baahan yahay in lagu sii rogo arrimaha markaasi dhanka amniga qaranka iyo siyaasadda iyo arrimaha dibadda Mareykanka in markaasi haatan cunaqabataynta loo baahan yahay in muddo lagu sii kordhiyo xaaladda degdeg ah ayaa la saaray Soomaaliya 12 Abriil 2010 iyadoo tallaabooyinka la qaaday ay yihiin kuwa markaasi la sheegay in haatan loo baahan yahay inay sii socdaan waxaana warqada Joe Biden uu saxiixay uu ku sheegay in ay tahay mid loo baahan yahay in waqtigeeda markaasi ay qaadato isla markaana muddo hal sano uu sheegay inay ku sii kordhiyeen isaga oo 12 bishii Abriil 2021 uu sheegay in muddo hal sano lagu sii kordhin doono amarkaasi gudaana daawadayaal warkaad kala socoteen warsida TV waa naga intaa nabadgelyo TV waa naga